مبارك فيه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه. aad iyo aad aan marka hore aan u bogaadina ugu hambalyeynaa wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta qaranka guud ahaan hawsha ay ku jiraan oo habeenii maalin aan loo aysan u kala kicin. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in wasaaradda amnigu ay aad iyo aad u xun tahay in dad aan nahayn dadkooda iyo dalkooda iyo degaankooda ay soo abaabuleen maleeshiyaad oo si kasta oo looga caqliga celiyey ama la isku dayay in loo caqli celiyana ay diideen in ay maanta soo weerareen magaalada muqdisho qaybo ka mid ah. ciidamada ammaankuna ay ka hortageen arrinkaasna ay soo afjareen in muddo ah markii ay isku dayeen ayagoo shacabkooda iyo dadkooda u naxaya in ay arrinta si waan iyo si qabow ah inay ku dhammeeyaan kadib markii ay suurageli weyday inay ciidanku arrintaa farageliyeen ay ka hortageen soona afjareen. cid alle ciddii dhibaato ku gaartay arrinkaas oo shacabka soomaaliyeed oo sharafta badan ka mid ah iyo deegaanada wax ku gaareenna aad iyo aadaan uga tacsiinaynaa waana aad aan ugu xunnaa. qodobka labaad wuxuu yahay madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud tan iyo xilka marka uu wareejiyay 2017 waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka Soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal ah in la weeraro iyadoo ciidankii madaxtooyada qaranku waardiinayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin. dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay u soo noqdaan runta biyo kama dhibcaanka ah. aadan cabdulla cismaan allah u naxariisto 1967 xukunka ka degay 2007 waa dhintay allah u naxariisto 40 sano ayuu beertiisa jannaale si nabada u joogay. waxaan u malaynayaa inuu aadan cadda yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore ku daysan karo inuu yahay ila taaniga. waxaan ognahay aadan cadde waxaa soo maray dhibaatooyin culus xilligii dowladdii kacaanka kadibna jabhadihii dhibaatooyin badan baa soo maray inuu ka nabad dooneeyo oo ka odayeeyo maahine ma dhicin weligiis inuu rabsho iyo dhibaato ka qayb galo. marka waxaan isleeyahay madaxweyne horoo lagu daydo haddii uu jiray aadan cadde inuu yahay waan rajeynaya in lagu dayso doono. qodobka ugu dambeyn oo rabo inuu sheego wuxuu yahay dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka degan magaalada muqdisho oo nabadda ay haystaan iyo horumarka dhib badan u soo maray dhiig badan u soo daadiyey waayo aragna u ah dhibaatooyinka la soo maray maantana dhididkooda ku dhistay iskuullo iyo isbitaallo iyo jidad dowladda ku dhistay nacfiga ugu badan ee dowlad laga helna ayagu hela. waxa aan mar kale u baaqayaa in aysan ka qayb qaadan dagaallo la soo xawilay oo dana shisheeye loogu shaqaynayo oo ujeedooyin laga leeyahay oo aysan qarsoodi ahayn. dadkii soo xawilay aan ognahay oo cid kastoo wax garata ay og tahay dagaaladan in la soo xawilay in ka dalaalaysa oo wax badan ka helayna ay jirto in dalaal ka ah dagaaladan oo wax badan ka helayna jirta laakiin loogu danaynayo shisheeyaal dowladda shisheeye loogu danaynayo. qof walbow haddaad moogeed ogow indhahaaga fur maskaxdaada fur dagaalada muqdisho loo soo rarayo waa dagaallo ay dowladda shisheeye wataan oo dad kale oo Soomaaliyana ay wax yaroo dalaala ay ka raadinayaan. haddaad marka dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo sharaftiina iyo dhaqaalihiina iyo karaamadiina ilaashanaysaan waxaa loo baahan yahay dagaal bilowgiisa la ogyahay dhammaadkiisa aan la ogeyn ayna ka macaashi doonaan shisheeye dalaaliinta yararna wax badan aysan ka faa'iidi doonin in aadan faraha la gelina. dagaal waa taqaanaan inta lagu soo jiraad ogtihiin nabadna waa aragtaan. dagaal waad soo aragteen jid burbursan dhul la kala xirto in lees dilo in lees furto inaan sharci shaqayn horaad usoo aragteen dhibkeedana waa ogtihiin. haddana waxa waaye dhul qurux badan iyo jidad dhisan iyo dowlad nidaamsan iyo mushaarka ciidanka la qaato iyo shaqaalahoo la qaato iyo madaxdoo la maamuuso waxaasoo dhan baan ku dhex jirnaa. wixii siyaasadana waa laga heshiin doonaa laakiin in dalka iyo dadka aanan iska dumin dadkana aanan iska dilin dalkana aanan iska dumin ayaa reer muqdisho noo ballan ah. danta nabadda iyo ilaalinta nabadduna dhammaanteen ayay dan noo tahay aan wada ilaashano. wixii naga xumaada waa naga xumaadeen
laakiin yaan wax dambe aanan iska burburin aad iyo aad u mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.